الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله عاوة سيدي أن كبل السنين waxaa marti noo ah oo muxaadaro insha Allah inoo soo jeedin doona sheekhana al-faadil sheekh Cabdirasaaq Xaashi muxaadarada sheekhu soo jeedin doona insha Allah tacaala ciwaankeedu waxa weeye faa'iidooyinka iyo wacdiga ku sugan qisadii nabiyullaahi yuusuf لا شك قصة النبي الله يوسف دروس وعبر بدن إني كجيران آدي نوتر بدن وحان خصوص تامر الشيخ كهالليون أركي إلا بقول لبية طبان درسي بوكسو صار بقول إيا لبية طبان درسي أو قصة النبي الله يوسف كجرت marka insha Allah taala sheekha ayaa qaada dhigi doona oo inaga hadli doona hadii Allah idmo aan dhageysanay insha Allah taala hadalka hala yareeyo insha Allah taala hana laga faa'iideysto sheekha darsigiisa jazakumullahu khayr hadana waxaan ku soo dhaweyn Sheekh Cabdirasaaq barakallahu fiik إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله وحان حلي كلمة يركنري دروس عبر قصة النبي يوسف وحان مركه ربالان قادني إنان عاوى حلي لن يرضى ama caruurta kelimad inaan u jeedino way suroob weyday caawaniri marka muxaadaradan caawa iclaansanayd baa la yiri booska iyada iska leh hal jeediyo laakiin qisadan waa qiso ay ka faa'iideysan karaan dhalinyaro iyo qof weynba qof kasta oo muslim ah khaasatan qisadan waxa cibar ugu sugan tahay saddex qaybood oo dadka kamid ah waxa ugu weyn waay oo laga faa'iideysanayo dadka dhalinyarada ah markii imtixaan ay ka hor yimaadaan lagu imtixaamayo shahwo iyo macsiyo inta ilaahay caasin lahaayeen qisadan duruus waxa ugu sugan iyo cibar sida macsiyada looga tago ilaahay darti looga tago waxay kaloo qisadani aad u anfacdaa dadka muslimiinta ah ay haystaan al-ibtilaa wal-imtixaan wal-fitan qof la imtixaamay dhibaato haysato cadow lagu salladay xaasid lagu salladay dhibaato dareemaya iyo murugo dareemaya iyadana qisadan waxaa ugu sugan duruus iyo cibar dadka saddexaad oo qisadan aad uga faa'iideysta waxa weeye dadka waalidiinta ah tarbiyada caruurta sida loola khitaabo sida umuurtooda loo maamulo ayana qisadani bay ka hadlaysaa markaan duruustan aan kor marayno waxaan caawa ku soo gaabsan doonaa 13 darsi oo aan ku magacaabay yaa abati innii ra'aytu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li saajidiin 13
12 xidigood iyo aabihii iyo hooyadii macnaha dayax iyo qoraxdii 13 suuradu sheegtay 13 darsi يعني إن شاء الله تعالى بنكون قابسان دونا دروس بدن باكو جت الشيخ شيغay شيخ أحمد نور sheegay waxaan xalay ka hadalay qisada habkay ku bilaabatay wiil dhalinyaro ah oo seexday oo soo toosay riya arkay aabihii u sheegay aabihii uu ku yiri qisadan amriyadan qofna ha u sheegin walaalihii u sheegay walaalihii ay xasteen ayuu arkeen inuu aabuhu ayaga ka jecel yahay ay intay qaadeen ay cunugi ceel ku rideen qisadaas qaybtaas waxaan ka hadalay in caruurta cadaalad loo sameeyo oo ina dareemin in midka kale laga jecel yahay in caruurta xasadka dhexdooda oo dhici karta inuu ka yimaado walaaltinimada iyo isla noolaanta in waalidku ay iska ilaaliyaan inay xasadkaas gaas ku shubaan oo caruurtu ay dareemaan oo xasadkaas u weynaado waxaan caawa insha Allah taala ka bilaabi doonaa درسiga ugu horeeya waxa weeye as-sabru 'ala al-ibtilaa wa 'adamu al-jazaa qofka marka la imtixaamo adduunkan waxa ka buuxda fitan iyo imtixaan meel lagu raaxaysto oo lagu nasto ma aha waa daaru ibtilaa oo imtixaan qofka muslimka waxa la rabaa inuu marka horeba aqeedadiisa aamino adduunkani inuu yahay guri ama meel la isku imtixaamo haddii qofka muslimka marka imtixaanadaasi ku dhacaan waxay ka ciideen ama ay ka hadlayn ama ay ka kharaarayn noloshii adduunka ee uu sugayay macaanka waxaa la rabaa marka qofka muslimka ah inuu ka faa'iidaysto sidii dadkii saalixiinta ahaa markii imtixaanadu ku dhacaan ay ula mucaamaloon jireen nabiyullaahi yuusuf aabihi dhibaato aad u weyn baa ku dhacday waalid maanta ay ku dhacda dhibaatadaasi ama uusan jirinba ama uu yar yahay dhibaatadaas oo kale markii been inta loo maleegay la yiri cunugaagi bahal baa cunay asagoo u jeeda inay been tahay oo waxa wiilkan dhahaya bahal baa cunay oo godka ku riday ay yihiin walaalihiisii cunugan ka waaweynaa iyo ninkan odayga caruurtu dhalay jawaabtiisa waxay noqotay fa sabrun jamiil والله المستعان على ما تصفون فصبر جميل صبر قرحان وعن صبر يا صبر قرح بدن صبر كوحالها صبر جميل مركي اللي هذا صبر جميل هو صبر الذي ليس فيه جزع وصبر كأركجح أين كجر على الأسل سعني نحدين أين لسعني qofka inuu walwalo oo dhibaato ku dhacdo oo uu iskontarooli waayo oo uu gaar xad uu isdilo ama uu isla hadlo hadii heerkaas uu gaaro sabirku sabir jamiil ama ah markale suuradan qayb kamida wiilkii labaad ba asagana laga qaatay oo la waayay markaas uu leeyahay fa sabrun jamiil asa Allah an yatini bihim jami'a wa sabr qurux badan ba sabraya إلهي وحمده إنه الله بدأ الإكرام وحال لقى فائدة مسألة إخواني إن قفك مسلم كأو صبر صبر كوا صدح قيبه صبر على أقدار الله تعالى وأنا مدعو أكالس مسألة ذان مركي إباتو قدر إلهي أكود أعضى إنا صبرت عرورتي با كادباتون حاسكا كاجرن خيركي با كوو حمان jirkaagii baa lagu imtixaami jirkaa kugu dhici reerkaagii baa lagu imtixaami maalkii baa lagu imtixaami hadihin maxay waxaan aniga igu dhacayaan waxa tiraahdaa fa sabrun jamiil qofka muuminka ikhwaani markaste oo dhibaato iyo imtixaan iyo ibtilaa soo food saaro wuxuu ka faa'iideystaa yaqiin iyo thiqa oo kalsooni Allah ku qabo wuxuu ka faa'iideystaa صبرك قيبت لبعض وحوية الصبر على طاعة إن لغو صبر طاعة وحيلة عليس بيلادة وقتي بيق هذا نيسا خاصة وقتي هذا الهد اللي بجروء أو كلاء أو سمركا وصلاته أدعى كرت إني دهان وأدعى كرت قفك إني هدد إنه كقعو ويسيستا أي دبيسو وأدعى كرت قفك إنتو أركو وحيابو أن مأدونه مشغولين إنه إلهي درت وقتك أي دبيسو طاعة إن لغو صبر أينا وصبرك النوع كامل
وحكروا الصبر كقيب كم إذا معصية إن لقى صبر دبرك يا أدونك يا خبضة يا مالك حارانتا يا وحستا مرينتا يا بينتا يا حنتا يا مالها الله فريستو معان أو شيء كذا معان أو بينتا أو ضدك مسلمين تعرض وبلغ شيء كينيو إنك كصبرت فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ودرسي الكواد عوان كيف إليسان وهذا كتقف إذا كم إذا إنه حجك لقوله وصاكن علي معها إن كان أضيقا سيبوا أصبري وحال هذا حزنك إيا مروقة كم وقت آبهان وعاطفة ودريم آبها مركع عنق سنباتك ودعضه لكن وحا عد إنه مرول بالصبر أو إسعلين oo intuu gacanta wixiisu ka baxaan oo saqayle iyo rabsho iyo buuq iyo geli ee uu leeyahay mar walba fa sabrun jamiil wallahu almusta'an ala ma tasifun masalada koobaad waay masalada labaad waxaan qisadan ka faa'iideysanaynaa arrin cajiib oo yaab leh qofka mu'minka qalbigiisa ku dagaya waxa weeye lutfullahi ta'ala wa inayatuhu li awliyaihi dhimrinta iyo naxariista ilaahay soo ugu naxariiso ugu dhimriyo oo ilaahay u daryeelo oo u keer gareeyo dadka awliyadiisa asaga ku xiran waxaad arkaysaan ikhwaani nabi yuusuf markii ceelka lagu ridayay qof rajo ka qabay ma jiro inuu ceelka ka soo baxay wiilashii ku riday ceelka rajo kama ay qabin inuu ka soo baxay asagu rajo kama qabin inuu ceelka ka soo baxay awood uu kaga soo baxa ma laha waa wiil yar waxaa haleeshay oo ku dhacday naxariistii alle markaasaa ilaahay wuxuu u soo diray dad safarley oo iska socda markii dhibaato kugu dhacdo oo murugadu badato oo ciriiri aad dareento faraj ilaahay wuxuu soo diray meeluu ka imaanaya aad u aada garanaynin wajaa'a sayaaratun faarsaluu waaridahum faadlaa dalwah buu alla leeyahay waxaa timid niman safarley ah markaase waxay soo direen ninkii biyaha u soo dhaaminayay ceelkii buu wadaantiisii ama weelkii biyaha uu ku soo qaadanayay buu geliyey markaasuu wiilkan yarkuu ku dhegay yaa baray yaa tusay yaa u sheegay allihii cunuga xalay dhashay naaska hooyadii inuu caanaha ka cabo baray inuu markuu rabo inuu kula hadlo wax kuu sheego uu ooyo baray allahaas baa ku ilhaamiyey inuu xariggan ku dhego markii la soo bixiyey oo nin uu gatay oo ahay sida loo jeedo caqliga loojiga cunugan yarka in la gumaysto oo si la raba laga yeelo oo la dhaw waa adoon iyo cunug wax dhalay aan la aqoonin wuxuu ilaahay yiri وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه نينكي إبسادي بحاجة سوحو كويل ويل كان كرامين حجاج وناجي عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وحدعكت إنه برينا أنفعه أما أن ويل كان لغنا دعكت إلهي بعاطفة قلبك يدق لي وحد الله يا أبوي waxaad ogtihiin ikhwaani allah asagaa ku abuurtay asagaa kula adoon ilaahay baa tahay ma ogid marka faraj ku imaanayo wiilka yarko markii muruga kugu dhacdo oo dhibaata kugu dhacdo oo aad cidiir dareento waxaad xasuustaa wiilka yarko ceelka ku jiray oo mugdiga ah oo habeenka mugdiga ah meesha iskaga jiro roob iyo dabayl iyo wixii dhacayay meesha ku jiray iyo bahal iyo mas iyo dugaag aan waxba ka warqabin halka iskaga jira ilaahiga waardiyeysanayay oo ceelka ka soo saaray oo guri aamin ageeyay oo guriga yiri ha lagu karaameeyo allahaasa adigana ku abuurtay oo kale oo ku jeeda wax lagu farxo weey xaqiiqatan waxyaabaha yaab kale waxa kamida nin salafki kamida ayaa waxa maalmaha kamida asagoo ardadiisu la socoto ayuu guri asagoo hormarayo wuxuu arkay mandar cajiib oo yaab leh wuxuu arkay qof dumar iyo cunug yar oo dhashay baa istagaalay markay istagaaleen cunug yar intay ku xanaaqday bay banaanka u soo tuurtay tag garaacday isagoo ooyay markaas albaabka ka xiratay sida hooyooyinku sameeyaan ninkii sheekha uu istaagay ardadiisina way la istaageen uu fiirinaya cunug yar albaabkii buu garaacay wuu ooyay hooyooy waa laga fulwaay muddo markuu sidii ahaa ayuu intuu daalay wuxuu iska fariistay guriga jaranjartii atabada ahayd oo albaabka xogaa markuu fadhiyay buu hurdada ugu seexday
hooyadii way fiirinaysaa gudahay ku jirtaa hal mar bay intay ishayn weyday waa hooyo albaabka furtay oo soo booday cunugii qaaday oo qalbiga ku qabatay oo dhunkatay oo boorkii iyo wixii gaar ay ka tirtirtay bay tiri ibni wiilkaygiyow adaa i caasiyey oo igu xumaaday ma ahane wiilkaygii baa too aan ku jeclahay dhibaatadaad samaynaysa mar dambe ha samaynin sheekhi intuu ardadiisa firiibu wuxuu yidhi ma u jeedaan wiilkaas iyo hooyadii xiriirkaa ka dhaxeeya wiilkaa hooyadii waxa ay ugu timid ma taqaanaan waxa weeye albaabkeediibu ka dhaqaaqi waayey haddii uu carari lahaa markay soo cayriso duurka iska geli lahaa ilaah baa wax ku dhici lahaa wuxuu yidhi ikhwaanii saas oo kale albaabka ilaahay u laazima oo u taagnaada oo u garaaca wuu idinka furayaa marka dambe waxaadna ogaataan wiilka hooyadii naxariista iyo jacaylka ay u qabto alle naxariista iyo jacaylku kuu qaba ayaa ka badan walidaalika markaad dareentid ciriiri iyo dhibaato waxaa la yidhaahdaa ilaahayow waad og tahay hooyada iyo aabbahay maanta jacaylka iyo wanaagga ay ii hayaan haddaan dhibaataysnahay ma ay igu fiirsadeen laakiin waxaan ogahay hooyada iyo aabbahay adaa iga naxariis badan adaa iga jecel yaa la dhahaa markaasuu wuxuu leeyahay ilaahay ninkan wiilkaas yarka ah ludfiga iyo naxariista ilaahay baa ilaahay halkaa kaga soo saaray mar walba inaad xasuusnaato oo qalbigaa uu ku xiraado waxaa kale oo wiilkaa yarka ah meeshaas aan ka faa'iidaysanaynaa tacaraf ila allahi fi rakhaa yacrifka fi shidda buu nebigu sal alla alay slam ilaahay waxaad garataa ood aqoontaa ood xiriir la lahaataa markaad barwaaqaysan tahay marka aad imtixaanka iyo dhibaatada ku jirtaba isaguna ku aqoonsanaya fiiri wiilkan markii hore oo uu aabbihii la joogay asagii aabbihii alla yaqaanay waad arkaysa xiwaarkii dhex marayay siday mar walba alla u xasuusanayeen markii la kala geeyey oo wiilkan uu dhibaatooday oo dhibaatadii uu ka soo baxay oo uu barwaaqo gaaray oo uu boqor noqdayna muxuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey wuxuu ku soo gabagabeeyey sheekada markuu soo waday wuxuu yidhi ilaahayow adiga ayaa horta i abuuray waxaa ka mid ahayd marka inuu yidhi faatira asamaawaati waalard markuu yidhi ilaahayow adaa dhulka abuuray oo samada abuuray oo saan yeelay oo ta'wiil alaxaadiid i baray wuxuu ku soo gebagabeeyey anta waliyu fi اdunya wاlaakhira tawafanii muslima waalxiqnii bisaalixiin wuu yaqaana alluu ku xihan yahay dhibaataduu soo maray oo dhan markuu ka soo baxay muusa dhihinin caqli la baan aha waxbaan isku xirxiray saa inagu majaalista kaga sheekayno telefoon baan diray xaggaan ka booday waxbaan isku xirxiray waan ka fakaday maanta xaggaan jiiraan ka baxay booliska waa u gooyey laba luuq baan ka baxay maya muxuu yidhi aabbihii markuu la hadlayay muxuu yidhi aabbo anigana ilaahigii waxaa mahadla xabsiga iga soo saaray idinkana baadiyaha idinka keenay id akhrajanii min asijni wa jaa'a minkum min albadwi oo idinkana baadiyaha idinka keenay من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء أيو لي إلهي بحسوسية وعلاقة صار وقف إنه حسناده وحاكلا أكمل إخواني قصدا استشعار رقابة الله تعالى إنه قفكم مروا البدريمو إنه ألا للجوجو dareenkaasi tamnacu alcabda min alwuquuci fi lmaxaarim waxay addoonka ka ilaalisaa inuu macsiyada ku dhaco markaa wiilkani markii macsiyada loo soo bandhigay waxaa la yidhaahdaa nebiyullaahi yuusuf markay xaaska ninka boqorka ay ka dalbatay inuu macsiyo sameeyo wax kasta oo qof dhallinyaro a macsiyo ugu yeeri lahaa ayaa u diyaarsanaa wax kasta oo qof dhallinyaro a macsiyo ku ridi lahaa baa u diyaarsana oo ay ka mid tahay kow waa hariib qofku markuu hariibka yahay inta badan ma xishooda sababta qof yaqaana ma jiro yaa ku arkay yaa kuu jeeda busleey waxaa ka mid ahaa qoftan dumarka oo u yeeranaysa waa qof sharaf leh waa qoftii gacanta ku haysay waa qofta u baahnaa weeye waa qof maanta in la diida ay adag tahay waa qof boqorad ah oo sharaf leh oo qiimo leh oo qurux leh oo qof dumaroo la damco qofka ugu qiimo badnaa waxaa intaasoo dhan ka sii daran gurigeedii buu ku jiraa qof tuhmaya waxa ka dhexeeya ma jiro albaabadii dhanna waa la xirxiray waa la adkeeyey qof ka soo geli kara ma jiro
intaas oo dhibaato iyo intaas oo waxa isku darsameen bay haddana waxay ku furtay min baabi tarqiib wa tarhiib oo ilaahay haddaadan yeelin waxaan kugu yeerayo xabsi baad ku dambaynaysaa qofku marka waxa dhici karta in qofka shaydaanku u dhaho war inta adduunyadaada aad baabi'i lahayd iska yeel waxaan intaas oo dhan isagoo u jeedo wuxuu yidhi qaala macaada allah ilaahay baan ka magangalay macaada allah waana xadiidkii nebigu sal alla alay slam uu nagu saalna uu dhahayey warajulun dacathu imra'atun daatu jamaalin wa xasab wa mansab faqaala innii akhaafu allah nin gabar qurux leh iyo sharaf leh oo position fiican leh oo dadka sumcad ku leh intay xumaan ka dalabtay yidhi allaan ka baqayaa ninkaasi waa dadka maalinta qiyaamada hooska alla harsada ilaahay keliya u xasuusta gabadhana waa la mid maxay markaa ku tusaysaa waxaa macsiyada kaa istaajinaya inaad alla xasuusnaatid mar walba qofka macsiyada waa lagu imtixaamaa ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu layabluwannakum allahu bishayin min asaydi tanaaluhu aydiikum warimaaxukum ilahay wuxuu idinku imtixaamayaa macsiyo aad gaari kartid hortaadaa la soo dhigdhigayaa macsiyadii ugaartii baa dadka xajinayo xaaraamta ka ahayd inay ugaartaan yay u imaanaysaa maxaa la fiirinayaa inuu ilaahay fiiriyo qofka ka baqayo qofka kale waliman khaafa maqaama rabbihi jannataan qofkii ka baqa alle hor istaagiisa ina aladiina yakhshawna rabbahum bilghayb lahum makfiratun wa ajrun kabiir qofka asagoo alla ka maqan ka baqaya qof weyn waayo ajr weyn buu leeyahay marka waxaa rabaa inaad xasuunato imaamu axmed ibnu xambal ayaa maalin waxaa u yimid nin markaasuu wuxuu yidhi yaa imaam kelimadahan ka waran wuxuu tidhi kelima carabiga uu leeyahay idaa maa khalawta dahra yowman falaa taqul khalawtu walaakin qul calaya ragiibu markaad maalin keligaa noqotid ha dhihin keligay baa noqday waxaad tidhaahdaa calaya raqiibu ilaahay baa i waardiyeysanaya dheh xasuusnow walaa taxsab ana allaha yakfalu saacatan walaa ana maa tukfi calayhi yagiibu ha u malayna alla inuu ku halmaamo daqiiqad waxa aad ka qarnaysa inay ka qarsoomayaan imaamu axmed xambal intuu waxaa la yidhi istaagay oo uu baxay wuu ishalmaamay oo qol uu galay oo albaabka xirtay ayaa ilaa hameenkii laga gaaro waxaa la maqlaya isagoo ku celcelinaya idaa maa khalawta dahra yowman falaa taqul khalawtu walaakin qul calaya raqiibu isagoo ku celcelinaya kelmaddii baa taabatay waxaa rabaa marka ikhwaani mar haddaad keligaa noqotid hasdhin fursaad hesho dhallinyarada hadda maanta waxaa dhici karta hadday gabar dhahdo waan ku jeclahay ama waan ku rabaa inuu dhaho waa jaanis waa fursad inuu dhaho hadhihin waa fursad ma aha waa fitno waa imtixaan qofka mu'minkaa lama fiiriyo inuu macsiyaysan waayo keliya waxaa la fiirinayaa macsiyadii adoo awooda inaad ka tagto ayadoo ku dhahaysa I want you I love you ayadoo ku dhahaysa inaad tidhaahdid no I don't want that ilaahay baan ka baqaya Allah is there Allah is watchful Allah sees me inaad dhahdo no ma rabo ma samaynayo inaad tidhaahdo iska daa nabiyullaahi yuusuf inuu intaa sameeye he went beyond that wax ka sii daran buu sameeyey muxuu sameeyey inuu yidhi rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayh ilaahayo waxa ay igu yeerayaan waxaaba iiga fiican inaan xabsi galo ilaahu intaan xumaan samayn lahaa xabsiga ha la geeyo woogi hadduu xabsiga la geeyo ninka xiraya waa boqorkii waa naagtii boqoradda ahayd qof ka soo bixinaya ma jiro qof u kaalmaynaya ma jiro waa khalaas waa la halmaamaya haddana wuxuu leeyahay rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayh intaan samayn lahaa macsiyada sijniga xabsigaan aadaya xasaasaa ii fiican ilaahay buu la baryaa ilaahayow intaan macsiyaysan lahaa weliba wuxuu leeyahay wailaa tasrif canii kaydahunna asbu ilayhinna waakun min aljaahiliin haddii aadan iga leexinin oodan adigu i caawinin waxaa dhici karta inaan dhibaatadan ku dhaco oo marka aan noqdo qof jaahiloo ilaah ku caasaya ilaahay baa marka ka leexiyo ka badbaadi waxaa la rabaa marka inaad mar walba xasuusnaatid mar walba inaad xasuusnaatid qodobka kale oo muhiimka ah oo la rabo qofka mu'minka inuu niyada ku hayo waana qodobka afraad waxaa weeye taxamulu almu'miniina liladaa wa habaatuhum cala alxaq qofka mu'minka dhibaatada inuu u dulqaato hadday diintiisa timaado
haddii diinta lagugu imtixaamo inaad u dulqaadato adkaysato wax kasta haddii lagugu sameeyo haddii lagu dilo u fiirsada saxaabada nabiga waxaa dhici jirtay bilaal radiyallahu canhu marka la ciqaabayay diinta keliya diinta lagu ciqaabay waa la dilaa waa la ciqaabaa waa la imtixaamaa marka la dhaho hadal wuxuu leeyahay axad axad allah allah wax kasta oo lagu sameeyo axad axad buu leeyahay wiilkan dhallinyarada waa sidoo kale nebi yuusuf si kasta haddii loo imtixaamo wuxuu leeyahay rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayh ilaahu xabsigaa la ii qaataa intaan macsiinta diintaada hadday timaado iyo adduunka diinta ha ku gadanin diintaada ilaasho wax kasta haddayba tahay adduunye ama diin waxaa la yidhahdaa addiinu waddunyaa darataani in ardayta haadihi aqdabta haadihi adduunka iyo diintu waxay isula mid yihiin laba dumar oo laysla qabo nin laba xaas isla qabo haddaad midaan raalli gelisa midaana caroonaysa haddaad midaan raalli gelisa midaana caroonaysa ma dhici karta labadaba inay raalli noqdaan ma dhici karto weligii maaragtay nin laba xaas qabo oo labaduba ay raalli yihiin oo hab yihiin mid uma complain garanaysa soo ma taasaad wax u qaraysaa taasaad diintii iyo adduunku waa saas oo kale haddaad diintaadii aad caawiso oo xoojiso ood barato oo iyada ku mashquulsho adduunyo badan baa ku dhaafaysa haddaad adduunkii ku mashquulshana diintii aa ku dhaafaysa waxaa la rabaa marka ay labadoodii noqoto marka inaad diintaada u xilato aad dhinaceeda u badato yaa la rabaa waxaa kale ikhwaani oo yaab leh oo qisadan laga faa'iidaysanaya qodobka shanaada iqtinaas alfuras almunaasaba libadli nusx inaad ka faa'iidaysatid haddaad muslim tahay fursooyinka ku soo maraya mar walba fursadu ma soo noqnoqoto mar bay ku soo maraysaa waxaa dhici karta inay fursadaasi kugu dhaafto less than 30 second ama 1 minute inay noqoto haddaada ka faa'iidaysan markaas weliga kuma soo marayso weliga kuma soo marayso qofka mu'minku waa saas nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam laba wiil baa xabsiga la galay labadii wiil baa u sheekeeyey waxay fahmeen ninkeeda inuu yahay nin cajiib ah oo riyooyinka fasira way u baahdeen markuu arkay inay u baahan yihiin ayaa waxay dhaheen laba riyaan ku riyooneen noo fasir markay riyada u sheegeen ayuu wuxuu yidhi wiilashii hadday ii baahdeen inta aanan horta idinka jawaabin bal anigana wax yar dhegaysta anigana waa idiin baahna anigana waxaan rabaa inaan wax idinla sheer galay I have to share you something haddaad adiga ila hadlaysid oo rabta inaad wax ii sheegtid listen to me 1 minute I will share something with you muxuu yidhi marka nabiyullaahi yuusuf markuu hadlay wuxuu yidhi wiilashaydiiyow ilaah wuxuu wadakhala macahu sijna fatayaan qaala axaduhumaa inii araanii kada wakada markii aayaddu ka sheekaysay oo dhammaysay muxuu ku yidhi dalikumaa mima callamanii rabbii horta waxaan idiin sheegaya waa wax alla i baray ani jaabkayga ma ah inii taraktu millata qawmin laa yu'minuuna biاllah wahum biاlaakhirati hum kaafiruun aniga waxaad ninkaad arkaysaan waxaan ka soo tegey dad ilaahay rumayn waayey oo aakhiro beeniyey baan ka soo tegey waاtabactu millata aabaa'ii ibraahiima waisxaaqa wayacquub waxaan raacay diintii aabbayaashay wiilashaana waxaan idiin sheegayaa diintu isku mid ma aha aniga diintii aabbayaashay baan raacay waxaa iga muuqda waa diintii weeye maa kaana lana an nushrika biاllaahi min shay inaan alla u shariig yeello annaga maba suurtagal ma ahaba waxaan nahay dad ahlu tawxiid ah baan nahay dad aan shirki ka suuroobin baan nahay weligana shirki caado nooma aha mana dhici karta alla inaan u shariig yeello dalika min fadli illaahi calayna wacala annaas walaakina akara annaasi laa yashkuruun waa fadli alle uu siiyo dadka qofkuu rabo laakiin dadka badankooda kuma shukriyaan ma garanayaan ma garanaysa iimaankaada haysta qiimaha u leeyahy ma garanaysa waxaa dhici karta inuusan qiimo kugula fadhinin walaakina akar naasi laa yashkuruun dadka badankoodu kama shukriyaan waxaa la rabaa akhi inaad oydo ood khushuucdo ood alla xasuusato oo keligii aad la munaajootood la hadasho oo tidhahdo ilaah waxaan kaaga shukrinayaa diinta iyo iimaanka aad igu manaysatay ood isiisay oo dad badan oo iga caqli badan oo iga cilmi badan oo iga xoog badan oo iga qurux badan aad ka qadisay
ووح الله بحي تبارك وتعالى مركزوه يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما إلهي بدن أي خير بدن ما سألك كل جيئة أو أودل أو كوفلا أو كجرب تاجن أو مركب ويارتك مغلية أو مرول بكل جرا أي خير بدن واحد عبود إنسان وصنميو وقول شيء دعوة وشاقي دعوة وقفة إليست وضوان دقيقة حبسي بكجرا دقيقة دوي حبسي يبقى كجرا مهل ما نسينه إنه وحنا ليابا dadka ana waxa arkaysaa qof markay dhibaato ku dhacdo waxa dhici karta dhibaato markay ku dhacdo salaad xataa ma tukanayo wuxuu leeyahay dhibaato ay ugu dhacday sheekh maxaan salaad tukada dhibaab ay haystaan naftii ay haysay naag dhibaato balaayi ah ilaahay uu salladay oo musiibo ah buuq baan ku jiray sigaar iyo waxa cabaya balaayi isku dejinaya ama khamru caba ama sigaar buu cabaya ama meelo shishad buu fariisanaya ama meelaha qaadka lagu cuno fariisanaya buufis baa ku jira wuxuu leeyahay dhibaato ay ugu dhacday war haday dhibaato kugu dhacdo waxa la rabaa inaadan Allah laamin asaga ku carab dhinaciisa loo carara mas'ala muhiim waa ikhwaan inaan xasuusnaan mar walba fursada ka faa'iido haday fursad ku soo marto dadka wax u sheeg diinta u sheeg waani baraaruji mar walba marra ka gaabin qofka muslimku waa daaci mar walba مالك سجود داعي باتا فعل كاغوا داعي دقن كاغوا داعي هذا الكاغوا داعي سكست او ددك اد ولما عملون سي دعوه ويا waxa kale mas'ala muhiim ah iyaduna oo aayadani ay ka hadlaysaa العبادة والحكم سواني لا يفترق أحدهما عن الآخر عبادة هي حكم ككتابك الله اسكو حكمه والله بالشيء او اسكو حران ما كلا حري كرا وهذه كرت مركا آية القرآن كآل أخرسين وحليه نبي الله يوسف إلهي مركشة كيني هذا الإلهي وحليه إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون هرت حكم كالله اسكله الله ماذا نهينا لما عابدوا وحو أمر إن العبد ماذا نساق أهين دين تتوصلنا والله بداس وإن الله دين تسكو حكم تود عابدين دين تتوصل لكن ذلك بدل كود مؤجا محال جودا إخواني حكمك وحال جودا ذلك قار بدل وكمل مرك حكم لجا شيكايو وحقاد يا ومركب أمه قنيس الدولة دو يعني من مدحها صحوي دولتها يا مدحها وإن الشريعة الإسلام ذلك كو حكمان أذيك أنا وإن شخصيا شريعة الإسلام كسكو حكمته انت هذا قف كلا فيرن اديك النفط هذا iyo gurigaaga iyo mujtamacaaga iyo communitygaaga iyo dadka aad ku dhaxjirtay fiira shariicada islaamka inaad ku dhaqdid in kale inta qof kale la gaaray shariicada ha u fiirin dadka kale kaliya adiga naftaada fiir in al-hukmu illa lillah xukunka alla marka aad ku xukuntato waxaad noqonaysaa الله عابديسا مركز الله عابدنا دينتا اسكو حكوميسا قفك هدوسا الله عابد مركز تود عبادة الله بديسو وحا زيادة شرفت هذه قيمها وفرس شرفت هذا زيادة شرفت إخواني مالك كم زيادة يا حوق يا عقلك يا درك الله قبو يا هذا الكمية يا قبيل كمية شرفت وحي كو زيادة عبادة يكو زيادة وكنك مسلم قالها ومما زادني شرفا وجيها وكدت بأخ مصيا أطأ ثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا وحيابها الشرف إيزيادي الله وأن كستكتي مركا أنا مقلبة إن عن دولو أن بيبو أن حدقها كو استاغو أن بودبودو أن فرحو وإن مركا يا عبادي لا ذهي أن كو أجرو هذا الكاس أن صوت الله يا عبادي مركا أنا الليل iyo inaan nabi maxamed rasuul iga soo dirtay iga dhigtood ii soo dirtay intaasan ku faraxsanahay sharaftaada ziyaadaysa diinta isku xukun reerkaaga ku xukun alla ka baq naftaada ku xukun labadaas ma kala haraan dadka muslimiinta laba qaybood oo qaybsanay qolo waxay raadinaysaa xukun wax kasta oo dhac waxa dhici karta xukunka kaliya inuu raadiyo xukun waxa dhici karta isagoo salaadii ka tagay oo cibaadadii ka tagay oo dharkiisii oo garkii xiiray
oo maxaa ku dhahay sarwaalkii dheeraysanaya oo wax calaamad diini ay ka muuqan xukun raadinayo isagoo sarwaalku u dheeriyay wuxuu raba sameynaya hadaad dhahdo wareer ma ilaah ka baqdo wuxuu leeyahay maxaad ka hadlaysaa sarwaal iyo salaad la tukaday iyo gabdhii muslimiinta baa la kufsanayaa shariicada islaamka daaquudiyadii baa ku ciyaaraysa sameynaya waa in ragga la iska celiyo war inta ragga iska celin horta oodan arka ka hadlin marka hore naftaada shariicada ku xukun dhinaca kalena waxaa jira qolo kale extreme ahoo inuu qofku cibaadaysto oo salaada tukado oo diin iyo xukm iyo waxaasba uusan ka hadlin oo uusan shaqaba ka gelin oo ku dhaho aniga waxaa shaqadeedu waxa wixii samada ka sareeyo adduunka shaqo kuma lihi taana sax ma aha ilaahay wuxuu labada marka la isku daro xukumka alle iyo cibaadada dalika diinu alqayyim walaakina akthara an-nas la ya'lamun ayu alla leeyahay arrinkaas diinta toosan oo saxda مسألة كلا أباهن إن كبر ابن وحوي النهي عن أن يمدح الإنسان نفسه صورة وحنود ديديسا إنه قفك النفس أمانة أو أفاني أو إسلوينادو أو لها أنا تكست هداب في عنته وهذا قاعد توحاتها أضان حقرا والدنبيلاء أو دتك واللي تأبت في جرتا مسكين باطل كبر كان وحويه إن قفك مسلم كأهدو كبر نار بخقلا وحليه النبي الله يوسف وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء تربية صورة كجر تفير نفت إذا مبري يلي النفط مرة بحمان تقول لها حتى هو حمان بدنتا نفت إذا مبري يلي مفسرين تقابل وحيدا وحا هذا الكاير وقبض ننكو قوي بقرك قالوا وحيدها النبي الله يوسف باين سكستبها هاتين نفط هذا اللي مبريا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ألا أقمتك التقوى بالنفط هذا هطهيرين أنا صان هذا مشكلة الناس مشكلة ترى وحوي نكو قبيل كسو كفاين قبيل كسو قبائش كذا وكسر هيا أنا غير هبل بانها أضوياتها ما حد أكتها سام باتها أنا غير هبل بانها أنا سام بانها أنا ما يتقانا سام بانها اسكول هبل بان كبحي حقا سانا أباي ساسو أهنجري وهذا النفط هذا هدول لبا وحي برتنا أنا إنجنير بانها دختر بانها وحانا هيسان وحانا الشيخ وحانا حافظ وحانا هيسان وروحها صحبكم ما تريسو شرفت صان شيخني وعبادته يا رجل نمد ودينته معها وحا أدهيستو الدنيا ده معها marka ha ku kibrin dadka ha iskala weynaanin waa inaad tawaaducdid waxaan la yaabay ikhwaani nabiyullaahi yuusuf markii uu gaaray darajada ugu sarreeya madaxtinimada oo uu noqday meliku misra uu noqday muxuu dhahayay markuu alla la hadlayay tawaffanii musliman wa alxiqnii bisaalixiin allow muslimiinta igu dar oo dadka saalixiinta anoo muslima idil oo dadka saalixiinta micigooda iyaan وكان شرف بديني إلى صالحين تمعي وضع إياه إنك هذا مشكلة إنه حوي قف مركو حوغاها لو مسلمته وكعرر كي سكول كبحا انتو طيح حرتو وحافظها كبورو ومال لا عدان كدقان دقو أيوم ساجد بو أسكالوية قبرت ان نهيسا جامعات بان كبحي أو سام بان هي أو خطر أو بروفيشنال يا مالين إيتنا مكاسا وحن كو إلي مساجد كما اعتمادي ما عبادي ستي ما سايش إنا وانيان طبعا مكاسا وحبت لي مساجد الشيخ وحكوتو كذا ضد أهد قول لي تقو باور كيك هاكد عايان مركا اعتمادي تو تايمس مساجد كينو تو تايمس باور كي اسكراج بالقسلي ولا قعر مركا دادك هذي نو انت سيدا دادك الارس بكتقري مية قانا نو شيخ ما إيمانا يعني مالها ما إيمان دادك أمد احقي لك راني نبو أساس دخاتير تاني انجنير تاني متعلمين تاني آو nimanka maalqabeenka away oo lacagta haysta away wuxuu haystaa in dadka laga carramaya waa inaad markaa mixraabka soo gashay oo aad tiraahdo tawaffani musliman wa alhiqni bi salihin nicmadan ilaahi baa bixiyay wana xasuusanaati waa arrinka waa inuu arrin weyn waa ikhwaani waxa kale oo muhiim ah ikhwaani mas'ala kale oo cajiib oo ah ظهور الحق ولو بعد مدة حق ظاهرا ونا عدادا ولو مدها قرصومين حق waxaa laga wadaa مثلا hadaa qof ku xadgudubto oo dulmiso oo xaq uu qarsooma laguma oga maanta qof baad dhibtay waxaad u geysatay maanta laguma oga waa dulmiday laakiin waxaad ogaataa maalin maalmahaaga kamida adduunka ama aakhira allahu soo cadaanaya waxaas dad baa waxa dhici karta marka qaarkood inuu ku wareeraba xaq oo uu dhaho xaqi meelu jiro ma aqaan waa wareersana
دول علماء قصتي بأنه وحي ما كلا قرنا وكورة سنة confusion بيجرى قارب صاحب الله وبحال هذا مساجد وادي أبا إسحاق يستبع ما قرنا زيادة حسن دول بحقول هبل وتوق هبل واسان هبل واسان وكليه هاي وحقيقة ما نما المها كم ذا إنه حق عدان دون وأذان دون تمشي حق الجرم سيدا الله وسنة سكري قبلنا وحيلا ذا الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين حتى حق عدالة أنا راجعين يويل كان أصغنا وحكم يكون رنب شيئا حتى حق عدالة مركا الدون كانوا عدان حقا ولي حق لما قرصوا حقهم مقال لما قرصوا هل الشيء اللي هتال قرصوا أظن ليس إن الله فكين كتمايا الدون كانوا عدان ما يوم تبلى السرائر اللي هو تسوى عدانيا مركا اسكيل على الانكاس وحكلوا أن كفى إذا سنة قصدا أو أقلب كسجالات جواز طلب الإمارة لمن علم من نفسه الكفاءة horta asalka shariicada islaamka marka la fiiriyo aayadan quraanka ah oo uu leeyahay qaala ja'alni ala khazaa'in al-ard inni hafidun alim uu leeyahay khaznadaha dhulka aniga iidib oo maaliyada iidib waxaan ahay nin xifdi badan oo hadana waxaan ahay cilmi badan baan ahay amaano iyo aqoon baan leeyahay uu leeyahay waxa laga faa'iideystaa hadaad aragto dadkii oo baaba'aya oo aad u aragto inaad ehel u tahay inaad dhihi kartid waxaan ana aqaana ii dhiibta aan idin hagaajiye professor laakiin asalka in la raadiyo madaxtinimo oo doorasho loo galo oo la raadsado waa xaraan waa nahi waxa nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam Abdurrahman ibn Samura saxaabi dhijri nabigu wuxuu ku yiri ya Abdurrahman ibn Samura la tadlub al-imara madaxtinimo raadin فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت عليها هذه سؤال أدويدي ستلغوسي درت والغوتها لسعرانيا وإن أعطيتها عن غير مسألة أدويدي سن هذه اللغوسيانة وعنت عليها والغو كالمينيا هذا كلها وحا نوقبه إلهي بقوه كالمينيا هذا فيها ستيد والغو إلهي بقوه هي اسكعي الواتنا هذا ما أنت وحا أرقني ويابلي 20 nin ama 10 nin ama 15 nin oo isku wada manhaj waa isku wada group waan la wada yaqaanaa nin walba doorasho nin walba wuxuu ku leeyahay inta kale waa tuugo ana cadaalad waa la qanyoonaysan cadaalad iyo waxaan ka dhijinayaa subag iyo barwaaqo bulay mid walba asaga saxsan markuu kursigii tago oo meesha qabta ay barwaaqadii ay wixii la sheegay oo wanaag la sheegay haday dadkii xataa soo doortay dhaaniyahu nama qancinay sida oran naga tag xataa ma yeelay nin sheekh abri wuxuu yiri Soomaalida dhibka haysto waxa weeye hadaan wuxuu yiri maanta aan dhahno masqulaha masaajidka nin rag kamid aan dhahno furayaasha noo hay oo muddo kadib aan dhahno akhi furayaasha iska wareejin kala u dhiibanayna ilaa 100 nin ku dhimata laga ma qaadi karo ma faa'iido ku jirta masqulaha furahooda inuu hayo إلا بقولنا كوبا أضل ما قاعد كرو وإن لسكول لايه مربح هدي ماشى ونول بإنه نقض كوميونتي لر إنه مدحوين نقض إنه الصرح إنه أرضه إنه دار شقله وحوله مسلمين تيجي وكتن تو وضدك وظلميه وبلايو كشقيه وهلا هدي لكن قفك ويا قف عدالة سيد خالد بن وليد وكله يوم مؤتة مركو أركي إن المسلمين تبعتها هيزته وإدجال كي كوبا بأيام calanka fi aniga idibta war idibta ayna ka saar meeshaan calankii buu qaaday waa kii muslimiinta ka bixiyay meeshii ee uu yiri nabi sallallahu alayhi wasallam waxa calankii qaaday waxa Jaafar wuu dhintay wuu shahiiday Abdullah ibn Rawaha wuu shahiiday waxa shahiiday waxaan ku dhahaa Zayd ibn Haritha wuu shahiiday waxa hadda qaaday sayf min suyuf Allah oo alla muslimiinta ku badbaadiyay كاليا وران سوكين توسيك إيديبا إني حفيظ عليم لكن هذا دن كلا هاي أو نشان وحكى الكودة تد أو ظلم أسمين يصير ملحتنما إن أورد أن أتت حرام ويا أصلك ما في مسألة سؤال كبرارو مسألة ذا كلا أو أن ربنا إن كبر جوت من حويه لا تحمل نفس ذنب غيرها نفي مقاد ذنب قف كلا ذنب جاها حصاري dadka dambi ayna lahayn dusha ka saareen fiiri ninkii boqorka ahaa
nabiyullaahi yuusuf markuu boqorka noqday oo walaaladii u yimaadeen oo wiilkii walaalkii ahaa yaraa uu qaatay inta la waxbuu xaday oo nimankii walaaladii ahaa ay dhaheen boqorkanoo dhib baana hayste ina lahu aban shaykhan kabiiran fakhud axadana makaana mid kala qaada muxuu yihi qaala macaada allah an na'khuda ilaa man wajadna mataacana cindahu ina idan la daalimuun inaan qaadanno qofkaan alaabteenna ka helay maahana qof kale dulmilowyaal baan noqonayna ikhwaani kelimadaa fiiriya dulmilowyaal baan yaa noqonaynaa haddaan qofka dembi uusan lahayn dul saaro mujtamaceenna maxaa baabi'inaya mid haddii gaangiistaro suuqa iska jooga uu qof dilo ninka reer hebel ku jira hala dilaa la leeyahay muxuu ninkaan kasbaday waxaa dhici karta inaad aragtid wadaad mimbar fadhiyo oo muxaadaraynaya dadka qaar baa waxay su-aasha ugu horreysa weydiin waxa weeye war ninkan yuu yahay horta haddii la sheekhu waa reer hebel war waa iga dhintay reer hebel maba le munaafiq ma ahana nin fiican maba leba ha ku kadsoomina wuxuu sheegaya haddii la waa ciddaadana allah maa sha allah ninkan waa nin fiican weeye maa sha allah waa cajiib weeye waxaan la yaabay fiiri wallaahi masaajidda waaweyn oo maraykan ku yaalla muxaadara anoo ka jeedinaya nin oday ahoo 80 kama yaroo gargududan yaa markaan muxaadaradii dhammeeyey buu ii yimid salaaddii cishahan ka baxnay wuu soo istaagay wuu islaamay halka mimbarka anoo taagan markaasuu wuxuu yihi adeerow intaad hadlaysa waxaan ku mashquulsanaa inaan fahma yaa tahay waan ka fakaraya marka qabiil baan kuu maleeyey reer hebel ma tahay horta markaasa waxaa idhi ma muxaadaradii maxaad ma ka fakaraysayba ninkaan hadlayaa weeye markaasuu yihi wakhti badan baa igu qaada sababtoo ah lahjadaadaan fahmi waayey marka waxaan islahaa wajuu yahay talow ninkaan oo maxay kuu sameeyeen macnaa haddaad ogaad cidduu yahay waa mushkiladna haysata haddii aad ogaan lahayd qofkaani qabiilkaaga inuu yahayna niyadaadu way kuu dhismaysaa waxaad aaminsan dadka kale ka fiican yahay hadduu yahay reer hebella waxaad aaminsantaa inuu tuug yahay hadda inaga fiiriya waddankeenna marka la dhaho qof baa meel loo dhiibay awal su'aal la su'aal waa yuu yahay hadduu reer hebel yahay waa tuug hadduu reer hebel yahay waa kariim waa maasha allah xafladda u dhigayna waa soo dhawayna oo baadhiyeynayna sax ma ah qofku dembi qof kale ma qaato ninka dembiilaha dadka dilaa isaga u taallaa isaga la qabsanaya xajaaj ibnu yuusuf oo ninkii adduunka ugu daraa oo muslimiinta soo maraya ayaa maalin xukun qaraar buu soo dejiyey wuxuu yidhi qofkii aan raadinayno oo dhib sameeyo oo dhuunta ehelkiisa oo dhan baan xiraya ilaa isaga la keeno nin baa istaagay oo wuxuu yidhi macaada allah an na'khuda ilaa man wajadna mataacana cindahu soo ilaahay ma dhihin buu yidhi ilaahay baa ka nasahan inaan qabanno qof aan ahayn qofkan alaabtayna ka helnay xajaaj wuxuu yidhi kadaba xajaajun wasadaqa allah xajaaj been buu sheegay allana run buu sheegay khalaas xukunkaasi maanta laga bilaaba ma jiro waa ina saa xasuusnaati marka qofka waxaa kaloo mushkilad inaga nagu ah dembiga aduga aad samaysa baa dadka kala dul saaraysa isagaa dembiga samaynaya u fiirsada hadda reeraha waxaa baabi'inaya ninkaa dembiilaa wuu is og yahay wuxuu leeyahay ayadaa xun ayadaa waxa samaynaysa ayadu waxay leeyahay asagaasaana hadda nin inaga nagamida intuu yimaado oo wax qaso yaa waxaa dhici karta inuu halkaa la soo istaago yidhaahdo masaajidka nimanka maamulaya waa saan iyo saan iyo saan waradeer adaa khaldan dembigaaga dadkaa saarin haddii luu dhaho inta mar ama waxaan samey ama saan yeel waa mushkilaa dhacaysa dhibbaa dhacaya marka waxaa la rabaa dembigaaga qof kale ha saarin waxaa kaloo cajiib ah qodobka 11 iyo 12 waan boobsiinaya wakhtigan ku talagalay baa kelimada dhammaanaya الشكوى إلى الله لا إلى الخلق إلهي أشهد ظروفت هذا ضدك أشهدني خلاني كلمة فيرية إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون فير وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم مركي مرقة كل عظيم حجري ابكى إحيا الله أشهدني قفك لو ما شيغاني ابن آدم وآيات سبحانه سورة يوسف حقات جعلان جريبا لعمر بن الخطاب صلاة صاحبه كأخر جريبا لي مركو آياتها مرة وأوي جريبا لي إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون
wax aadan ogeyn baan anigu alla ka ogahay agtiisa kalsooni aadan ku qabin baan ku qabaa asagaan u sheegtaa dhibkaa dadka uma sheegto ma allaad ka dacwo yaa u dacwo markaad leesaana igu dhacday dhibkaana igu dhacday dhibkaan ahlusunna waljamaca waxay qabaan qofka min baabi in uu calaacalo oo eed sheegto dhibka ku dhacay dadka hadduu u sheego waa dembiile min baabi alkhabar haddaad dhahday waa jiranahay qofka dhib male haddaad u sheegaysid war inaad jirantahay keliya duruuf ku haysataa aad ka wadid waa mashquulsanahay ama xoogaa arrinteedu ma fiicna ama wakti ma haya ama sibaan ahay waa jiranahay laakiin hadday calaacal iyo eed sheegad kaa noqon dad baa iska eed sheeganaya maanta dhan alla u eed sheego qof kale ha u eed sheegan ninka ma xasuusataan maskiinka ahaayoo dameerka watay asagoo dameer wata ayaa nin daalim ah oo dadka dilo oo tuug ah yaa wuxuu yidhi iqaad tuule heblaaye iqaad wuu soo qaatay qisada waa gaabinaya markuu soo qaatay oo meel cidla maraya suu dhahay inta mar buu meel cidlaho buur abu ka dhex tuuray markaasuu wuxuu yidhi meeshaan waxaa kuu keenay inaan ku dilo dadkaa ujeedina anaa laayay intaasoo lafa madax meesha yaalla markaasuu yidhi yaa cabdi yaa cabdallah weesh dembi maxaan anugu kasbaday maxaa ii dilaysaa inaan ku diloon dameerka qaataan rabaa iyo xoolaha haye xoolaha iyo dameerka qaado oo idaa maya aniga caadadii waxa weeye ninka waan dilaa xoolihiisaan qaataa wuxuu yidhi haye waayahay laba ragcadood aan tukada ma ii kaadinay sii tuko markuu uu sujuuday wuxuu yidhi yaa man yujiibu almutara idaa dacaahu wayakshifu asuu allaha kan dhibaataysan ajiiba oo dhibaatada faydow ku celceliya yaa man yujiibu almutara idaa dacaahu wayakshifu asuu isagoo dhahaya ninkiina uu leeyahay cajil degdeg waryaas dhaqso seefuu la kor taagan yahay ayaa waxaa nin baa gadaal ka soo galay ninkii suu u socday buu ninkii daalimka meesha taagnaabuu waran dhabarka kaga dhuftay jug ninka wuu dhacay ninkiyaa soo kacay markaa ninkoo dhacay buu soo kacay suu yidhi man anta war yaa tahay kumaad ahayd markaasuu wuxuu yidhi ana min junuudi man yujiibu almutara idaa dacahu wayakshifu suu anu waxaan ka mid ahay ciidanka midka dhibaatada fayda oo qofka dhibka haysta markuu u yeerto fayda ayaan askartiisa ka mid ahay iska dhaqaaqay iska baxay waa wax lala yaabo sooma marka waxaa la rabaa inaad saa xasuusnaatid allah fayda dhibka allah loo sheegtaa mas'alada labitanaad waxaa weeye cadamu lya'si min rawxi illah weligaa naxariista allah ka qusan hadday dhib kasta kugu dhacdo naxariista allah ka qusan ninkaa maskiinka oo odayga ah oo murugo darteed la indhabeelay oo cunuga ciyaalkiisa ka murugaysan yahay oo wax cunugii koobaad iyo kii labaadba waayey oo wax haga oo meesha iskaga dhibaataysan ayaa wuxuu lahaa yaa baniya idhabuu fataxasasuu min yuusufa waakhiih walaa tay'asuu min rawxi illaah inahu laa yay'asu min rawxi illahi ila alqowmu alkaafiruun naxariista allah ka quusanin naxariista allah ka quusanin qof aan kaafir ahayn kama quusan naxariista allah min bayni darfati cayni waintibahta yughayir lahu min xaali ilaa xaali hal sakan buu alla umuurta kala gediyaa hal sakan buu alla umuurta kala gediyaa nin xirxiran oo loo keenay in la dilo oo maxkamad la taagay oo tiirkii ku xiran ayaa nin dadkii u yimid inuu daawado ah ayaa intuu soo agmaray buu wuxuu yidhi wuxuu arkay ninkaanoo iska degan markaasuu wuxuu yidhi addoonkii allow wax aan kaa caawiyo ma jirtaa intaan lagu dilin suyi maxaa dhacay suu yidhi cunto ii keen suyi wari habi doqon yahow kolba daqiiqad kadib waa lagu dili maxaa cuntada ku fadhi culays unbay kuu keenaya markaasuu wuxuu yidhi yaa akhi adiga ma ogid mafaatiixda alleh allah haya gacanta alleh ay ku jiraan khayr ana wuxuu yidhi cuntaan u keenay cuntadii isagoo cunaya anigana ninka hadalkiisa la yaabanahay yaa nin baa dhawaaqay suyi boqorkii daalimka ahaa waa la dilay nin kalaa inqilaabay dadkan maxaabiista ahoo xor baa tin iska baxa xargii baa laga fulay ninka wuxuu sii ordaya ayaa dhabarka ka taabtay buu saa'ir buu warba warrab markaasuu yidhi buu yidhi farajkii ma aragtay horta farajkii alla ma aragtay wuu iska qoslaayaa buu allah keena waxaa yaa qisooyinka aan akhriyay waxaa ugu yaabka badnaa waddanka etoobiya waxaa ka dhacday nin ka mid ahaa nin wadaad ah ayaa la qabtay markaasaa waxaa lagu xukumay laifkiisa inuu seerfagareeyo oo ku jiro xabsi xaaskiisii baa waxaa la soo booqatay markaasuu wuxuu ku yidhi
xaaskiisii inaan waxaan rabaa xabsiga noloshayda kama baxayo mar waxaan rabaa inaan iska kaafuro lacalla inuu ilaahay kugu arsuqo zawj kale iyo ilmo markaase waxay tiri ma adigaa ma allah ku xukumay oo kugu xukumay inaad xabsiga ku jirtid lifekaaga mase waxaa ku xukumay bini aadam si bini aadam baa xukumay say tiri alla naxariista kama quusanayno fiirba kama quusanayno naxariista alle waa ku sugayaan hadalku waa hadal yaab leh waxaa la yidhi usbuuc 2 usbuuc iyadoon ka soo wareegin ayaa waxaa gobolka tegay Itoobiya walaalihii jamhadda uu ninkaas ka tirsanaa hogaaminayay markaasay dawladda Itoobiya heshiis la galeen markaasaa ninkii la soo daayay xabiis ugu soo daayay ku jiray ka warrama gabadha imaamkeeda within 2 weeks ayuu la joogay xaaskiisa لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون أخي هدي الباطل كودا حيصلها هدين هايسدين قعمها تاجن بل إذا من الهيرة ما أنو يقول الشيخ مركان قرية تقول سررتوا إلى وريتا مركان كفر إنسان رب الجيس كلك سوريجيسا أنا رحمكم ما هي أنا بوفس باكو هاي سر وريجيسا مجرد واسكت إيمانيس مجرد إلهي ترسارة الله آد محاكو هاي دبا يقول على حقا يقول على حقا يقول على حقا يقول على رحمكم ما هي الله ترسارة دبكستوك يقول على الله كل جل مسألة قدام بيسون كسر ختمية وحوية التقوى والصبر مفتاح كل خير صبرك يا التقوى الله أيا وحكست أو خير أفرأوا هذا الله كبقبه أو صبرته خير أو الله كسينيا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين أيوليه نبي الله يوسف وأنه مركي يابن أو سيوح أجرا ماذا يوسف معونك يراون عيلك كل خلاص ماذا ما أنت بقرة محيري إنه من يتقي ويصبر كلمة خالدة أو وارتي بين نقطة أو عبرة كسرانتها أو قرآن كله سودكي قفك الله كبق أو صبرة الله مطيع أجرك قفك محسنك وناك سميني والله أعلم جزاكم الله خير بسم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين جزاه الله خيرا الشيخ عبد الرزاق runtii qisaska fi suurati yuusuf waa qisas aada u cajab badan iimaanna uu qofku ka siyaadsanayo ahlu iimaanka ah sheekha runtii qisadii hadda uu sheegayey iyo dadka hiqada ilaahay subxaana wa tacaala qaar ay ku qabaan iyo iimaankoodu meeshuu gaadhsiisan yahay iyo inaynan allah subxaana wa tacaala ka quusanaynin baa qisadaasi waxay soo xusuusisay qiso magaaladeenna ka dhacday qisadaas u fiirso magaaladeenna ka dhacday Seattle Washington qoyskay ku dhacdayna hadda way joogaan runtii aad baan ula tacajubaa iimaanka qoyska iyo sida ilaahay subxaanahu wa tacaala hawsha ay ku dambaysay reerku muddo isqabeen waxaan filayaa 10 iyo ziyaado sano ahayd wax ilma iyo wax uur ana ilaahay subxaanahu wa tacaala ma siinin wax badan bay sameeyeen oo waddankan wada aragtay ilmaha la isku beeraa la yidhaahdaa mar iyo lababa way sameeyeen laakiin way u suuroobi weyday kadib waxay sameeyeen markii dambe inay xajka aadaan ilaahay la soo baryo haddana waxaa la aaday meesha dadku adduunku dhakhaatiirta meelba ugu dambaysa qofka Soomaaliga markuu xanuunsado waddan walba tago meel baa la yiraahdaa lagaga quusto waxagee meeshaas jarmalka aadeen dadku way wada garanayaan jarmalka aadeen jarmalkiina waa lagu soo daweeyey way soo noqdeen qoyskii weli ilaahay wax markii ma siin muddo dheer haddii la wada noolaa reer isku fiican ay ahaayeen waxay soo jeediyeen oo labada qof mid ka mida ka timid in ilaahay subxaanahu wa tacaala laysu faatixeeyo hala kala faatixaystaa la yidhaahdaa laysu duceeyo ilaahay risqigiisa iyo awlaadna la kala raadsado haddii iyaga ilaahay waxu siin waayo labadaa walaal mid ka mida markuu qisadii soo jeediyey midkii kale aad buu u murugooday xaaskiisii uu jeclaa waqti dheerna la soo qaatay xumaanna uusan ku ogayn
wuxuu yidhi arrintaas murugay ku noqotay mana xumayn karo qofkii awlaadda in la yeesho oo ilmo la dhalana waxay ka mid tahay waxyaabaha maqaasidda guurka ku jirta iyo waxyaabaha loo guursado marka haddii muddo laga fikirayay wa ficlan haddii aan sii caddeeyo gabadha ayaa soo jeedisay in la kala socdo wiilkana arrintu way ku adkaatay markii ay aragtay inay hawshu adag tahay wiilkana meel adag ay marayso yaa gabadhu waxay keligeed baa iska istikhaarotay ilaahay la tashatay go'aan keligeeday gaadhay waxay ku tiri bal u fiirsaad hadalka nin baad rabtaa inaad guursato kale waxa aad doonayna waa in ilmo ilaahay ku siiyo soo ninkaagan hadda ku qaba ilaahay kaama siin kara ilmo adoon waxba samaynin soo ma dhici karto inuu isagoo ilmo ilaahay kaa siiyo gabadhii ninkeedii waa u timid waxay tidhi arrintii waan ka tanaasulay waana joojiyey ninkaygaana tahay maantiiyo berriba insha allah abshir carabtu abshir bay yidhaahdaan hawshii sidaasay gabadhii ku go'aansadeen reerkii alxamdulillah waxna samayn mayno isbitaal dambena tegi mayno ilmana isku beeri mayno meel uma kala soconno ilaahayga subxaanahu wa tacaala qof kale iga siin lahaa adiguba nin baa tahay alla waa iga kaa siin karaa ikhwaanii waxaa aad u cajab badan waxaa laga joogay go'aanka marka la qaatay waan xusuustaa 2 wiig mise 3 wiig gabadhii waa xanuunsatay isbitaalkaa la geeyey uur bay leedahay allahu akbar gabadhii uur bay leedahay waxay noqotay yacni arrin lagu cibro qaato dadkii xaaladda ogaa oo dhan gabadhii uur bay leedahay alxamdu lilah uur bay yeelatay waa dhashay maa sha allah haddana uur bay yeelatay uurkii labaad bay leedahay allahu akbar qisadaasi waxay ka dhacday magaaladeena waa ahlu iimaan waa hiqa billaahi subxaanahu wa tacaala waa cadamu lya'as waa inaan alla laga quusanin subxaanahu wa tacaala allahu qaadirun calaa kulli shay wax walba alla waa awooda hadday umuur kugu adkaato sidii sheekhu sheegayey jazac iyo argagax iyo intaad aadi lahayd allah ku carara subxaanahu wa tacaala rasuulka sala allahu calayhi waaalih wasalam waxaa ka mid ahaa idaa xasabahu amrun salaad buu iskaga carari jiray ilan yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu biالصabri waالsalaa baa leh marka salaad buu rasuulku hadduu murugoodo ama arrini ku adkaato salaad buu gelayaaba humuumtii iyo dhibkii waa daynaya ruuxaaniyaad iyo jawi kaluu gelayaa isagoo wuxuu ka soo baxayaa ilaahay xamdigii umuurtiisa uu kala degata marka ilaahay subxaanahu wa tacaala aan isku xirno sheekha ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo runtii muxaadaro aad u cajab badan bay ahayd taabanna haysa qof kasta oo muslima qof weyn iyo qof yarba inooguna sugan tahay cibro iyo faa'iido wixii ummaddii hore ku badbaaday unbay dadkan dambena ku badbaadayaan diintan kuma hagaagaysaa la yidhaahdaa ilaa dadkii hore waxay ku hagaagtay unbay ku toosaysaa marka innagana waddadaa dadkii hore ee ilaahay subxaana wa tacaala ka baqi jira aan qaadadno ilaahina subxaana wa tacaala inagu arsaaqo sabir iyo cabsiba sheekhana ilaahay subxaana wa tacaala muxaadarada miisaan alxasanaat allah u geliyo in sha allahu tacaala wajazakum allahu khayr baaraka allahu fiikum insha allah